wadaad caraba waxaan ka dhageystay qisa wuxuu yiri nin baa ii waramay buuri wuxuu yiri caruurtiisii iyo xaaskiisiba wuxuu ku dhahay bil fasaxa ilaa waa arteen iskuulaha iyo madaarista iyo bil baa fasax laga qaataa bil fasax oo carruurta ay fasax laayeen baa wuxuu aan soo yar dalxiisno meel buu tagay oo hotel weyn oo dalxiis hoteelaha qaarkood waxay leeyihiin meelo biyo oo lagu dabaasho meeshaan degno iskaga dabaalanaynay gabar yar oo carruurtiisa ka mid ah baa meeshii godkii ee dabaashii loogu talagalay ku dhacday mar dambe unbaa waxaa laga war helay gabadhii inay meesha ku dhacday meeshii baa la galay gabadhii baa laga soo saaray ambalaas baa la saaray waa lala orday isbitaalka waxa la gabadha dhimatay 100% wuxuu aad baan u murgay aad baan u xanuunsaday gabadhina meeshay ku jirtaa muddo yar ka bacdi nin dhakhtar ay imaaday buuri nin dhakhtar ordi baa ay imaaday wuxuu yiri war abshir waa muddo ka bacdi oo gabadha isbitaalka ay taalo oo meydnimo la isku hagaajiyay oo la rabay ay qaabka lagu dhaqi lahaa lagu kanfiha lagu qaadi lahaa in la galo muddo yar ka bacdi wuxuu dhakhtar ordi baa imaaday wuxuu abshir gabadhaada in yar bay u neefsanaysaa buu yiri buuri subhanallah waa gabadhi biyo intay ku dhacday muddo laga war helay gabadhi wuxuu yiri muddo yar ka bacdi in yar bay u soo oxygen wixii baa lagu xiray muddo yar ka bacdi si fiican bay u soo noolaatay dhaqaatiirtu waa isku ka imaadeen waa arrin mucjiso oo la yaab ah dhaqaatiirtu baa ay dhaheen buuri niyahu maxaa samaysay maxaa amal ah oo samaysay oo ilaahay gabadhaada uu maanta sabab oga dhigay inuu badbaadiyo in wax walba sabab buu leeyahay yuhyi wa yumit wa Allah laakiin asbaab baa jirta wuxuu yiri wax walbaan fiiriyay wax walba oo qaban jiraan dib ugu noqday waxaan ogaaday buuri agoomihii aan kafaala qaaday adduunka waxa cid ii og aan jirin inuu ilaahay maanta gabadheeda sabab oga dhigay inuu ii badbaadiyo markaas hadal cajiib ku hadlo wuxuu yiri kafaltu yatimatan fakafala Allah ibnati hadal cajiib ah wuxuu yiri agoon baan kafaala qaaday waxaan cid ogaan ilaahay dartii fakafala Allah ibnati aniga maanta ilaahay baa ii kafaala qaaday gabadhaydi inuu ii badbaadiyo cajiib agoomaha oo laga warhayo